just don't come overnight. السلام عليكم كولبا ألف باتا ABCD 1 2 3 وأنا فرتون مالين عصب أركت عصب كسر دو channel كيجا هدات كاش فيديو كان لايك يتابو رأي هداربتنا دي بتيت كومنت كوساقر أركت سان عمل هدارتت سبسكرايب كلكوسي ما أنت فيديو كوكوسي أبسني هاي دعلمة وحواي إلى تالي هنو بلعبته qofkan waxa uu bixinayna nawaal af Ingiriisi ku soo qortay soo af Soomaaliya ku bedeli doona waxay tirahay daalimarkayga waa daalimar degdeg ah walaal waalay qaba waxa lay qaba 2 bilood marka ani asaga ishukaansaneynay wax kasta caadi bay ahaayeen familkiisa way ii fiicnaayeen kamaana dareemin dareen xun ayaga wuxuu igu yiri hadda lacag nagu filan ma haysto sanadka koowaad waxa la noolaaneynaa hooyadeyda iyo labada gabdhood oo ila dhashtay marka ayaga arkay way ii fiicnaayeen dhibaato maan u qabin hooyadeyda laakiin taas way ka soo horjeeday waxay tiri ninkan aroos kuma siinaayo nikax bis buu ku dhigayaa hooyaday waxay tiri wuu awoodaa inuu guri labadiina ii ijaaro laakiin ani hooyaday waxaan ku iri sanadka koowaad kaliya waaye dib ma rabo inaan saaro culeys ma rabo inaan saaro ninkan waa jeclahay waxaan rabaane guri inaan isla dhisano soo aniga dib uma arko inaan la noolaado hooyadiisa iyo labada la dhalatay sanad kaliya hadda hore hadaan ku wado 2 bilooda laga joogaa waxaan dareemayaa inaan naar ku jiro way ii xun yihiin shaydaamo bay igu yihiin si xun bay ila dhaqmaan walaashiisa marbay dharbaaxday waxay ila dhaqmaan sidii inaan shaqaale ahay cuntaan kariya guriyaan hagaajiya shaqada guri oo dhan aan qabtaa taasna waxa ii sii raacsan waxaan shaqeeyaa 9 to 5 miinin waxay shaqada gashaa 3 saac subaxnimo waxay ka soo baxdaa 11 saac taasna waxa ii raacsan inay igu qeyliyaan markasta ee waqti ay helaan ay igu qeyli karaan markuu asaga joogo way duwan yihiin dhowr mar asaga u sheegay waxaan ku iri si xun bay ila dhaqmaan asaga mi aamino dhowr mar baan u sheegay wuxuuna yiraahdaa mar dhow waa tagi doonaa aniga waan u fiicanahay waan u dulqaataa laakiin hadda ma dulqaadan karo waxaan ka imaaday guri jacayl lagu dhaqan yahay dadkan ima xushmeeyaan mid kamid ah gacanta ii qaaday sababtay gacanta igu qaaday waxay tahay dharkeedaan dhaqay dharkeedana waxaan ku dhaqay daawo duwan ima sharfaan ani waxaan dareemayaa in abuse ay igu haayaan ninkan waa jeclahay ma rabo inuu familkiisa ka soo horjeesto laakiin aniga waan daalay xanuunkeyga sidee ku fahamsiiyaa sidee gurigan ooga baxaa ma rabo inaan u sheego hooyadeyda because hooyadeyda hadaan u sheego waxay dhahaysaa sootaan ku sheegay fadlan abaayo maxaad sameey lahayd adiga hadaa ku jiri lahayd tan aniga ninka waa jeclahay wuu ii fiican yahay saan waxay igu sameeyaan markuu guriga joogin aniga guriga markaan imaado waa markuu asaga shaqada aado marka labadeena guriga badana islama joogno markaaseena dhacdaa abuse-ka ila tali talooyinka way badan yihiin waxaan igu tiri adiga hadaa ahaaleed maxaa sameey lahayd ani hadaa ahaala walaalay gacal soo horta naag ani ficiga gacan ima qaadi lahayn gacanta ii qaadateeda kala u qaadi lahaa hooyada ani ma taabaleen laakiin naagta adiga ku dharbaaxday oo ku dharbaaxday dharkii ayada leedahay u dhaqday shaamba qaldana ku dhaqdaan ku dharbaaxa igama hooyo fiicno igana ma aaba fiicno tay igu dhajiso labadeedaan ku dhaji lahaa laakiin taas dabeecad xumada ku keenan faanta aad qof aboona tahay hala dulqaataa liir dulqaadkii aa wada tan kale waxay tahay mutaqaana in aad gurigaaga hooyada aad ku noqotid ninkaan tiraadid waa kuu sheegay wax maaba ka qabanin ani guriga hooyadayaan joogaya ilaa adiga iska kaafi kartid oo anigan iga kaafi kartid oo meelna geey kartid kuma soo noqonayo hooyada hadaa ka baqaysid inaad u tagtid uga baqaysid waxay dhahaysaa waa kuu sheegay dhib ma aha hal mar lagu dhaha kadibna hooyo hore uga soconay marka guriga hooyada ku noqo ninkan alaabtaada dhan ka qaado waxa tiraada marka nin rag iska dhigtid oo diyaarta oo guri ijaari kartid oo aniga i dhaqan kartid oo reerkaaga iga ilaalsan kartid aan soo noqonaa hooyada u tag meeshaas ku noolo ma fahanti ama naagahan shaqaalaha u tahay ha ku dacweeyaan ka tag guriga marka soo gashid oo shaqada ka imaatid qoweyso dharkaaga xiro bax hooyada u tag hooyada adood wax u sheegin hooyada la joog markuu shaqada ka soo noqdana
soo noqo ayaga hadhood waxay dhahayaan oo heblaaya naagtaada way wareeg badan tahay oo way baxdaa markuu ku weydiino waxaa dhihi kartaa aniga waxaa u baxaa waa kuusoo dacwaday wax maada ka qabanin cuntaan kariyaa guriga u hagaajiyaa waa shaqeeyaa gacanay igu dareen waa ugu shaqeynayaa isku facaan nahnay walaalaan nahnay dad dumaasho isku ahaan nahnay ma aha waalid iyo maaragtay gabar hooyadaa waa xushmeynaa laakiin labadaas gabdhood qasab maaha inaad dharka u dhaqo wax u sameeyo optionaha way badan yihiin dhulkaas dhigin ma fahantay dhulkaas dhigin meeshaas lagu gooracaa meeshaas dhigtida lagu gooracaa marka dhulka iska soo qaad naag raga iska dhig yaa ninkaa ku qabo ninkaa xaq kugu leh hooyada cizay kugu leedahay gabdhaas cizay kugu leeyihiin laakiin kuma laha inaad cuntada u karisid alaabta u dhaqdid kadibna adiga dharbaaxay kugu daraan adigaa go-aansata waxa inaad u samaysid axsaantu inay ku dhahaan waaye inay wax kula qabtaan waaye dad haboon ma aha marka fiicnaanta badan iska daa ninkaaga waa jeclaa kusoo celcelinaysaa ninkaaga iska jeclo hadaarati laakiin nafsadaada inaad ka fikirtid waaye naagta maanta dharbaaxyada kugu dhufatay hadhoodina saliiday kugu shubi kartaa ninkaaga dadkiisa hay assalaamu calaykum ma isku leediin aniga maba ila haboonaba in la dhex galo oo wax la isku darsado because waa lisnacaa dadka isma fahmayaan dabeecadaha lisma fahmaayo dhaqankana islama fahmaayo marka abaayo optionaha waa kuu badinay camera xiro maaragtay hadalka duub ninkaaga tus ka tag hooyadaa aad kadib ha ku soo raadiyaan ha ku dacweeyaan kadibna u sheeg inuu asaga wax ka qabo waaye ama hooyadaa dhanba u tag u sheeg waxa dhaco asagana waxaa ku tiraahdaa ilaa meesha iga wada kartid oo guri ii ijaari kartid ma kuu soo noqonayo laakiin meeshaana aniga maaragtay lagu dharbaaxa haboon ma aha aqligna kuma xirno ninkaan jeclahay mada kale xataa mataqaana ilaahay cafiyo laakiin naagta ku dharbaaxday aniga waa ka aarsan lahaa ilaahay cafi aniga boqolkiiba aad iska dhahay 70 waa iska fiicana inta kale gubata qasaaro aniga horta gabar lama dhalanin hal wiil bisaa la dhashay laakiin gabar hadii ila dhalan lahayd taas adeegsan lahaa inta ku waraadan axado kale guriga imo ayadan ku taaba lahaa ilaa naagtan gacanta ii qaadaa ninkeyga marba inaan isku dhacno dhac ku sii kor inta u qaadid maaragtay dhulka bac igu sii way dharbaaxda iiga ah laakiin oo guusocinaa waa iga fiican tahay marka optionaha kale iska qaado adinkiina wax kale ra'ayaa haysiin please comment-ku kusoo qora qofkan waxaa u bixinaynaa zamzam waxay tiraaday abay waan ku salaamay marka hore aad baan u jeclahay barnaamijyadaada thank you waxaan ahay gabar 26 jir ah waxaan ku noolahay dalkii waxaan dhameeyay jaamacad 3 sano shaqo la'aan ayaan ahay reerkeyga aad bay u danyar yihiin ilmo badan ayaa ila dhashtay aniga reerka ugu weyn oo wax laga sugayaa waxaan bartay nin aad iga weyn oo 40 jir ah waa i wanaajiyaa lacag badan waa i siiyaa bil kasta sidaan reerkeyga ugu caawiyo wuxuu yahay nin wanaagsan oo akhlaaq leh diin leh jecel lacagta uu igu bixiyo xisaab ma laha dahab telefoon laptop iyo inka badanba wax walbo aan weydiisto wuu isiiyaa iyo mid aan weydiisan intaba 2 sano ayaan isla soconaa mar walba guur ayuu iga dalbadaa anigana waa cagajiidaa wuxuu igeeyay meel Afrika ah inaan masterkeyga ka sameeyo oo waxbarasho ka helo haddana waxaan ka dalbaday meel dibad ah waxaan joogaa meeshii dibadda ah hadda wuxuu ii raadinayaa lane meel kale dibad ah aniga qorsheygu wuxuu yahay inaan meel ku gaaro markaan meeshaas tago oo dibadda ah xiriirka inaan u jaraan rabaa ama markaan waxbarashadeeda ka helo sababta waxay tahay waa kow nin iga weyn 2 wuxuu leeyahay 2 reer daala markeyga waxaa waaye kow asagii oo rabo guur degdeg ah 2 hooyadeeda waxay dhahaysaa iska guurso waa nin wanaagsan isagoo kale ma helaysid waan kugu duceynayaa hooyadeeda waxay kaloo igu tiri waa qiyaamo ma liibaanaysid haddaad ka tagto maxaad sameynaysaa hana ila yaabin waayo aniga ma ihi qof dadka isticmaalo laakiin wada kale waan waayay aniga ma ihi qof dadka isticmaalo laakiin wada kale waa waayay walaal ka caliso taladeeda daa ku sii waxa taa mataqaana ana horta waxyaalahan camal
fartumada xiraa soo baxdo ma fahamtay aniga inaa dadka isticmaala ma rabo laakiin jid kalaan waaye walaalay gacaliso markaa kow la sheekaysanaysid inaad danyar tahay waa ogeed inuu kaa weyn yahay waa ogeed sababaa ku gashay sababtaa ku gashana waxay ahayd inaa isticmaasho oo lacag aa ka qaadato marka ha iska dhigin qof wanaagsan oo haysanin jid kalete jidadka kale aa haysato waxay ahayd inaa yaanyo meel ku gatid inaa bardho meel ku gatid inaad guursatid ama raadsatid qof habboon oo adiga aarabtid jidadka way badan yihiin jidka kale waxay tahay inaad jilba jabsatid ilaahay barisid laakiin no qofka waxaa layidhi mataqaanaa waxaan soo barto badanaa waxay dhahaan mataqaanaa qofka markuu rabo inuu wax xado intuuna waxa xadin wuu ogyahay haddii la qabto wixii ku dhici lahaa maskaxda calculationka ka samaysanaysaa oo fartuun yaanyadan haddaa xadid 5 baanay joogtaa laakiin haddii lagu xiro 7 bilood muu qalantaa amanina kadib aa waxa samaynaysaa iskama samaysid waxa bil aadan ahaan waxa kuma dhacdid evaluation baa sameynaysaa marka waa ogeed waxaa sameynaysid ha iska dhigin qof wanaagsan oo jidkii ku dhacay leh waa ogeed you knew waan u bareertay marka hadda waxa yaalo waa ku raacsanaa hooyadaada oo qobada ma fiicno ninkan hadda intaa ka cuni kartid waa ka cuntay maxaa rabaa inaan ku aado dibad kalete oo markaas aan u jaro ama waxbarashadeeda markaa dhamaysto inaan u jaro waqti ha ka dhuminin asay kaliya waqti kama dhuminaysid adigaa waqti iska dhuminayo 26 sano jirtaa maanta ma aha inaan nolol ka dhigatid qof aan isticmaala aan meel ku gaaraya waxa u baratay dhiigaaga iyo xoogaaga iyo aqligaaga inaan ku wax maad u baran buugi qalin maad u qaadanin intaasoo sano hooyo lacag kuma siinaynin oo iskool ma kaa bixinaynin oo kuma geynaynin in aan maaragtay nin lacag ka qaadatid waxaad samaynaysaa intay goorgoor tahay iska jooji ninkan u sheeg waxaad tiraahdaa xataa qofka waxaa la yiraahdaa walaal aniga hadda wili niyad kuma hayo hadduu isku dhadhajiyo oo wili waxa ku siinayo alxamdulillah laakiin niyadaada inaad saafi ka dhigtid waa because waxaa hadda samaynaysid waa xaaraan qofaa waqti ka dhuminaysaa ama ha weynaado ama ha yaraado waa same un bil aadan waa dareen uu leeyahay asagana waa mid maskiin ah naaga aanay qabin oo meher ku dhicin oo wax aan ka faa'iideynin lacag ma gelin lahayn baasaga qeyrkiisu uu helayaa adigana waxa wadid shartooda waa helay hadaad iska joojinin marka intay goorgoor tahay wada kale ani maana fahmin daalamarku wuxuu yahay runta hadaa ku sheego daalamarku waxa ay u soo dirtay maxaa rabtay inaan kuwaaniyo ku dhaho iska jooji ama waxaa rabtay inaan ku dhaho waxa sameynaysa okay waaye hore u soco like waa fahmi laahay daalamarka aawe aroosiya daalama ana hal jida u jeeda oo qof wax xun qof ku sameynayo oo dhahayo taas waxa igu keentay danyarida aan ku jiro xumaata sameynaysaa markaste jid kale ma laha ina xumaatada iska joojisid bis waa jidkaaga marka daalamarku waxa lagu soo afgooynayaa hadaad ilaahay ka baqaysid hadaad rabin oo qobo inay kugu dhacdo qof wanaagsan oo diin la akhlaaq leh hadaad oo wax baratay jaahil matiid iska jooji qofkaana isticmaalaysid ama niyada u furo iska guurso maadaama uu ku jecel yahay uu haboon yahay aad tira akhlaaq uu leeyahay diin uu leeyahay da'da dhimma laha ma yiri 26 aa jirtaa ani badanaa markaan dhahay dadka waa saqiir suujus ama dad haboon ma aha in ilmaha aadaan ma aha ma jeceli qof ka yar 20 inuu aado qof 40 jir ah Janistan 26 aa jirtaa mature tahay waa ogtahay waxa sameynaysa laakiin cunuga ka yar 20 ma ogo ani waxa aaminsanahay dadka waxay dhahaan shaqal gaaleeda wada dadkii dhahan markaan dhaho 20ka waxa ka yar ani wili caruur ay yihiin caruurtaas ma jeceli inay dadka waaweyn aadaan laakiin qof 25 ka weyn wuxuu rabo sameyn karaa mature waay qofkaas ani isku facaanahan isku aqliyaanahan marka ninkan hadda adigu kuma xumay karo aqli kugu filan oo asaga aad ku xumaysid waa leedahay marka iska guurso qeereeso niyada u furo hal uu guursado waxaagan iska cun xalaal ku ahaadaan ama iska jooji hadaad niyad u haynin ee ka tahay ninkan waa isticmaalaya waa ku dangaaraya dantaas aaraadinaysid waliga ma gaareysid because uquba kugu dhaceyso xaraan waay waxa cunaysid wax duceysan ma noqonaysid wax duceysan ma dhalaysid adiga un kaarmada way ka soo baxeen xumaatada sameeyso maalin tahay way kugu soo noqoneen marka gacmahaaga dhunko waa shaqeysan kartaa lixdaada lixaada leedahay aqoona leedahay hadaba inta goorgoorta iska jooji cafisna weydiiso hore u dhaqaaq ama guurso waxa xalaaleyso niyada u fursi haboon hore u soco labaas wax kugu ma dhaxayso waxa lagu leeyahay oo nimanka xun ay hata naaga ay nimankaba hada gubata finish kabuut qalaas qof dhan oo wax bartay 26
26 naagir matid aqli wuu kugu filan yahay aqli weliba waxaa leedahay kiil iska very dangerous aqligaaga because waxaad dan ka dhigatay qof kale inaa isticmaashid so adiga qofkaa rabto waa guursan kartaa aqli enough kugu filan waa leedahay aad 60 jir 70 jir 80 jir ku dhaqatid odayga in lala hadlo waa asigaa ba aragtay markaan qorsagaalada lagu haaya waaba nin soft ah ilaahay wax duceysan sii usoo duceeya walaalkaas ilaahay wax duceysan sii odayga yar gabartaanne sharti ay u socoto ilaahay inuu ka joojiyo intaa kusoo gabagabaynayaa talada haysin please comment-ka kusoo qora and yeah qaraabada lagu salaamo adiyo Do it for the love and not do it for the life.